annaga dawladda shalay oo dhan shir baan ku jirnay xalay ilaa xalay oo dhan shir baan ku jirnay saakadan oo dhan shir baan waxaan la shirnay madaxda dawladda oo dhan waa la shirnay wasiirka ololeenku laga bilaabo kulligood waa la kulanay arrintan islii waxaan la kulanay madaxda islii oo dhan baan saakay la kulanay dadka odayaasha culimada iyo ganacsatada islii madaxdooda dhan saakay waa la kulanay laakiin hal shay baan ballan qaadnay annaga Soomaali haddaanu nahay iyo muslimiin annaga dadka dhibka wada oo nugu jira inta yani awoodayni inaan dawladda la shaqeyna askartan la shaqeyna aan waxaan soo saari karnaa soo saar dawladana waxay ballan qaadeen ayagana waxaan ka codsanay oo ballan qaadeen inay cadaadiska ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta wadankan cadaadiska ay ku hayaan inay ka joojiyaan annagu raalli waxaan ka nahay dawladda askarteedii baaritaan caadi inay sameeyaan oo sharciyeysan taas raalli baan ka nahay laakiin baaritaan aan sharciyeysaneen oo xadgudub ah hoodhac ah xoolahaada la boobay gabdhihii la boobay taas waan diidnay waana loo sheegay yani luqad maanta lagu sheegi karo oon ku sheegin ma laha marka waad maadsantihiin waan idinka warhaynaa aad baad u maadsantihiin runtii aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan aad u soo baxdeen waxaan aaminsanahay hal shay baan idin leeyahay walaalayaalow sabra adduunkan sabar iyo dulqaad baa wax lagu gaaraa sabar baan idinka rabnaa insha allahu tacaala annagana wixii karan kahayn waan dadaalaynaa dhibaatadan waa dhammaani laakiin idinkuna sabar iyo dulqaad lahaada annagana waan ku dadaalaynaa in dhibaatooyinkan oo dhan aan joojinna wadankana nabadgelyo ka rabnaa insha allahu tacaala idinkana nabadgelyada noogu dadaala insha allahu tacaala wassalaamu calaykum